بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمابا خيارتا هودا نغلا سعوتاي كسو دوادا دغيستيال وربحينينا marka lagu hadlayna haduu alla idmo wararkii u dambeeyay natiijada doorashada Somaliland oo aan wali la shaacinin balse xaqiiqadu ay tahay in cid walba waxa ay haysato ay si rasmi ah u taqaano gobolada iyo degmooyinka qaarkood ayaa dib loogu tirinhayaa codadka maalinimadii shalayto la dhiibtay ayaga oo guddiga doorashooyinka iyo dhammaan musharaxiintu ay yaqaanaan natiijada soo baxday ayna ku dhawaaqi doonaan si hordhaca loo shaacin doono xilliyada inagu soo aadan maxaa cusub ciro waxaa la kulmahaya safiiro iyo ergooyin kala duwan kuwaasi oo muujinhaya in ciro ku guuleystay madaxtinimada Somaliland Faysal Cali Waraababa cidi lama kulmayso wuxuuna ahaa musharax u taagan madaxtinimada Somaliland haddaba dhageystayaal xogo badan oo dheeraada ayaynu idinla wadaagaynaa iyo doorashadii Somaliland oo noqotay mid aad dunida oo dhan looga hadalhayo isla markaasina ku dayasho mudan oo si aad u qurux badan u qabsoontay oo nabad ah awna ku guuleystay sida muuqata ama loo badinhayo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ah xisbiga wadani musharaxa ka socday taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 14 November sanada 2024 waana habeenimo Jumco mubaarak ku soo dhawaada dhageystayaal warkaas oo faahfaahsan haddii ugu horreyn baa dhageystayaal aynu ku bilowno doorashadii maalinimadii shalayto ka dhacday deegaanada Somaliland oo noqotay mid cajiiba meelo badan oo dunida ahna aad looga hadalhayo maadaama oo Afrikada doorashooyin daahfuran inta badan aysan ka dhicin ayaa loo badinhayaa inuu ku guuleystay musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ah musharaxa la aaminsanaa markii horeba inuu ugu taageero badan yahay maadaama oo Muuse Biixi Cabdi uu doorashadii hore ku guuleystay inta badan dhulka Soomaalida waxaaba lagu yaqaanaa in uusan soo laabanin madaxweynaha markaasi xilka haya oo mar walba sida aynu naqaano doorashada uu soo baxo musharax cusub oo markaasi dadka ay isbaran doonaan ciro waa madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee Somaliland hadduu alla idimo guddiga doorashooyinku ma aysan ku dhawaaqin laakiin waa sidaasi oo laga laaban mahayo sida aan sheegnayba ciro maanta waxaa la kulmayay wakiilo iyo sidoo kale danjirayaal kala duwan wadamo aad u badan sida UK Imaaraadka Sweden Switzerland Norway France iyo waliba wadamo kale waxaana aan arkahaynay dhoola cadaynta qosolka iyo hambalyeynta and body language waxa la yiraahdo la sameynayay asaga oo la soo dhaweynayay guusha uu gaaray maynan guddiga doorashooyinka wali ku dhawaaqin sirna ma aha hadii la sii sheego oo cidii markaasi ay si ugu suurta gasho uu sheego yiraahdo ninkaasi ayaa guuleystay caalamka oo dhan doorashooyinka way ka dhacaan tii Mareykanka ayaa u dambeysay haday sir tahay warbaahinadii tooska u tabinayay ee codadka la arkayay tirooyinka say u kala horeeyaan ayaa la qarin lahaa wadanka Kenya doorashada markay ka dhacdo warbaahinta ayaa lagala socdaa meel walbana tirooyinka sida ay u kala horeeyaan warbaahinta ayaa laga arkaa sidaas baana marka u dambaysa lagu dhawaaqa laakiin guddiga doorashooyinka way ku saxan yihiin in ay ilaaliyaan systemka in ay xaqiijiyaan doorashooyinka doorashada ama tuulo degmo iyo gobol intaasba waa la tirinhayaa marka hadda adigan dhageysanaya ma waxay kula tahay in uu jiro musharax aan aqoonin codadka uu haysto ma jiro dhammaan musharax kasta oo rajo ka qabay doorashadan waa uu haystaa natiijada goob kasta oo cod laga dhiibtay laguna tiriyay uu ka keenay aad ayuu u yaqaanaa sababtan haddaan ku raaciyo musharax kasta goobta codadka lagu tirinhayo waxa u jooga wakiil ama munaaqib waxa la yiraahdo shakhsi mas'uulka ayaa u jooga halkaasi ayaa lagu tirinayaa codadkii dhammaan dadkii meesha joogay guddiga doorashooyinka wakiiladii intii meesha joogtay mas'uulka ahayd codkaasi la tirinhayo oo dhan marka ay isla qaataan halkaasi ayaa lagu saxiixayaa qof kastoo meesha joogay waa uu saxiixayaa waxaana laga samaynayaa warqadaha koobi waxaana loo kala dirahayaa wakiil kasta xisbigii uu wakiilka ama ururkii wakiilka u ahaa ayuu u dirahayaa marka ciro oo kale dhammaan wuu haystaa waraaqihii goob doorasho kasta ka imaaday ee asaga codadka uu helay ku saabsanaa marka uu haystana xoghaynta xisbiga wadani ayaa gacanta ku dhigaysa iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga markay ku dhigaana dad badan ayay sidaasi ku gaadhaysaa kulmiye oo kalena waa sidaasi xafiiska xoghaynta waxaa ku soo dhacaya codadka ay goob kasta oo codad lagu tiriyay ay ka heleen iyo inta ay haystaan kadibna xafiiska marka la geeyo dad badan ayay gaadhaysaa waa ayna soo baxaysaa ma jiro shakhsi aan aqoonin codadka uu haysto waxaana codadka ugu badan helay musharax
cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo noqonaya madaxweynaha somalilan mana aha sir haddii la sheego sababtoo ah caalamka oo dhan doorashooyinka waa ay ka dhacaan waa la sii saadaaliyaa waa la sheegaa somalilanna waa sidaasi oo kale doorashadii ugu nabdoonayd ugu qurux badnayd ayaana ka dhacday waana lagu kala guulaystay xataa xisbiyada soo baxay waa sida ay dadka ay sheegahayaan ama inaguba aan horay u sheegnay waa labadan xisbi ee waaweyn ee kulmiye wadani iyo xisbiga kale kah la yiraahdo marka meesha sidaasi ayaa loogu kala baxay waana lagu kala guulaystay madaxweyne beexi waxa uu sheegay in uu wax hadal iyo war uusan ka keenaynin waa nin weyn oo oday uuna arkahayay sida uu wax u socdo waa laga guulaystay waana uu qaatay marka hawsha halkaas ayay maraysaa guddiga doorashooyinku dabcan codadka markii tuulada lagu soo tiriyo ee degmada lagu soo tiriyo ee gobolka lagu soo tiriyo in markii horeysa tuulada lagu tirin kadibna waxaa lagu tirinhayaa degmada kadibna waxaa lagu tirinhayaa gobolka in tiradu intaas dhan ay is yeelato ayaa la doonayaa meelaha qaarkood haddii sanduuqyada muran uu ka jiro in dib loogu noqdo oo la xalliyo ayay noqon haysaa marka ayaga laftoodu hawsha ay ku jiraan waa ayna sheegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan si horu dhac waa ay u sheegayaan waxayna diidan yihiin in natiijooyin aan rasmi ahayn lasii sheego waa runtood natiijada rasmiga iyaga unbaa sheegi kara shaqadana iyaga unbaa loo dirsaday laakiin doorashada waa lala leeyahay saadaalinteeda iyo ka hadalkeeda waa doorashooyinka caalamka ayay la mid tahay oo sidaas ayaa loola leeyahay waana la sheegahayaa laakiin wixii ama isku dirid iyo xumaan iyo in dad la ceebeeyo ama wax khaldan la yiraahdo taas unbaa un reeban in laga warbixiyo oo laga hadlo oo la saadaaliyo oo xogaha laga hayo la sheego way furan tahay oo systemka caalamiga ah iyo system kasta oo doorasho ayaa ogolaanaya taasi marka si kasta dhegaystayaal dadka diidan musharax kasta oo soo baxa mucaarad ayuu yeeshaa intooda badanna ciddii la tartamaysay ayay mucaaradada ka timaadaa marka mucaaradba dadka qaarkood haddii doonaya iska hadaan laakiin cire ayaa ku guulaystay doorashadii somalilan waana madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee somalilan sida aan sheegnayna waad aragtaan sida way ula kulmahayaan ergooyinka caalamiga iyo safiirada iyo danjirayaashu sida ay ula kulmahayaan aad iyo aad ayaa loo arkaa cid kasta way ku qanacsan tahay sida aan filahayo ama hadda way aaminsan tahay in uu ciro ku guulaystay doorasho kasta oo dhacaysa ayada oo natiijadeeda la yaqaano unbay un guddiga doorashooyinku sheegaan oo ay ku dhawaaqaan sababtoo ah doorashadu haddee iyo cidda la dooranhayo sir ma aha ma jiro cid tartamaysa oo la qarinhayo dadku hadday ogaadaan inuu guulaystay inuu dhibdhacayo laga baqahayo ma jirto sababtoo ah qof inuu guulaysto inay dadku maqlaan aan la rabin markii horeba ma uusan tartameen marka sidaasi weeyaan xaaladdu meel fiican ayay maraysaa doorashadii shalayta somalilan looga dareeray waxay noqotay doorasho aad u fiican oo aad loogu bogay hadda wakiilada faraha badan iyo ergooyinkii ka qaybgalaya caalamiga ahaa danjirayaasha faraha badan ee tegey dhammaantood aad ayay ugu bogeen oo iyagoo ka hadlay waxay sheegeen in doorasho aad u qurux badan ay tahay xataa xamar iyo dowladda federaalka dad hadlay oo ay ku jiraan xildhibaano sida xildhibaan mahdi guuleed oo kale waxay sheegeen in doorasho aad u qurux badan oo in lagu daydo oo lagaga daydo sida quruxda badan ee doorashada somalilan ay u qabsatay in ay qabsadeen islamarkaasina ay tahay guul aad u wanaagsan oo koonfurtana in sidaasi oo kale ay sameeyayso ay tahay marka doorashada waa la tartamaa oo way iska jirtaa xiisadii laakiin hadda way soo dhammaatay xiisadii iyo ololihii iyo isnacaybkii isriixistii iyo xogaagii baalihii iyo magacyadii la sheegahayay iyo wixii oo dhan hadda mar haddii ay doorashadu soo dhammaatay ilaan kasbasho iyo codod uruursi ayay ahayd oo ruux walba intiisa iyo ceebtiisa ayaa la sheegahayay si dad cod siin lahaa loogu diro laakiin hadda way soo dhammaatay madaxweyne cusubna waa ay yeelatay sida muuqata ama inteena badan aan isku raacsannahay somalilan waan soo dhaweynhaynaa madaxweynaha cusub mudane ciro waxaan u rajaynhaynaa in ilaahay uu la garab istaago xilkaasi culus ee loo idmaday uuna noqdo mid wanaagsan oo ku bedelay iyo kuwa badanba ka fiican rajo wanaagsan ayaan u haynaa lama yaqaano waa uu la tijaabinayaa hadda cirahaas maanta somalilan ay dooratay ee helay codadkii ugu badnaa بريتو waxaa laga yaabaa hadii Muuse dib uu ula tartamo inuu Muuse ka guuleysto hadiiba uusan noqonin Ciron mid Soomaalidu dhan ka duwan isla markaasina aad loo jeclaado oo de wax cusub oo Soomaalinimada uu kaga duwan yahay la yimaada hadii uusan noqonin sida Soomaalida lagu yaqaan ee caadadeeda ah ma soo laabto tartanka dambe madaxweynihii hore ama hogaankii hore ee doorashada dhacday hogaanka ka ahaa asagu meesha laga arriminayo inta badan ma soo laabto hadda xasan sheekh maxamuud
markii asaga xilkii hore uu ka dhammaaday tartankii muusan soo laabanin mar dambe oo nin kale la nacay oo ka dambeeyey ayuu soo laabtay soomaaliduna wixii hore lama xusuustay wixii u dambeeyey inbaa niyadda iyo qalbiga lagu hayn marka cadaalad ayaa u rajaynhaynaa inta badan dadka way hoggaansamahayaan haddii cadaalad ay arkaan haddii qofkii madaxweynaha noqday uu ka guuro meeshuu deganaa oo intuu meel madaxtooye ama meel kale uu dego oo guryo cadcad uu magaalada ka dhisto oo meel kasta lagu arko dad la leeyahay madaxweynaha ay u shaqeeyaan sirdoon bay u yihiin waxay u yihiin wax gaar hadda yacni wixii saxda ahaa mee waa wax leexsan waxaas bay u yihiin bootooyinkaas buu qabsaday nin ay ilmo adeer yihiin ama ilmo abti yihiin ayaa madaxweynaha ii imaaday oo xidhay waa uu ii hanjabay lacagtii iyo dhaqaalihii waddanka yaallay waxay si toosa gacanta ugu dhacaysaa dadka ehelka la'a madaxweynaha meesha ka jira yacni inta badan waxa keena dhibka iyo in dad meesha mucaaradad ay ka dhalato waddanka qaralaasa galo waa marka aad indhahaaga ku aragto dadkii xigtada kaaga ahaa madaxweynaha in ay kaaga dhadhow yihiin dhalashahaan xigtay u yihiin laakiin shaqada uu hayo asagu kaama laha qof kasta oo waddanka ka mid a kama u laha waa loo siman yahay in kuwa asaga xigtadiisa ah ay u dhowaadaanna dabcan asaga ayaa sababi kara haddii ay u dhow yihiin kuwa xigtadiisa ah iyo kuwa weliba asxaabtiisa ah yacni madaxweynuhu asxaab kama yeelan karo ummadda oo dad asaga dadkao dhan ka xiga oo wax walba asaga ka qaadan karo ka ansaxsan kara in uu yeesho waa khalad marka haddii cadaalad ay timaado ood aragto ninka madaxweynaha ehelkiisii iyo dadkii kaaga abtirka dhowaa ood isku nolol ku nooshihiin oo aan kaa xigin oo koodii siyaasiga ahaa uusan hoosta kaga jirin oo koodii shalay geela ka yimid uusan hoosta kaga jirin oo xoolo ay samaysteen iyo dhismayaal iyo adduun cusub adigii oo taagan hortaada laga dhisanayo haddaadan arkin waxaad dareemaysaa in aysan jirin in ay jirto cadaalad aan dhehee marka qofkaasi dhib iyo buuq ma kicin hayo inta badan dad dan kale lama ogiye marka insha allahu arrimo badan oo dee horey loo soo arkay inuu iska ilaaliyo ayaan rajaynhaynaa doorashadii sidaasi ayay u dhacday gobollada uu ku guulaystay ciro waa ay badan yihiin sidoo kale madaxweyne biixi isaguna gobollo ayuu ku guulaystay meesha la yidhaahdo maroodi jaax oo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu helay 124,573 cod sida warkii u dambeeyey ay sheegahayaan cirana waxa uu helay 120,383 cod ayuu helay ninka la yidhaahdo faysal ayaan yaraysaninba maroodi jeex isagana wuxuu helay 3,054 cod marka asaga laftiisa codad badan ayuu duqa helay baa la odhan karaa inkasta oo faysal loo badin hayo in codadkiisu intaa un hargeysa ka soo baxday ay yihiin oo meelo kale uusan codad fiican ka helin oo xataa xisbigii iyo wixii uu meesha ka baxay waa ninka la yidhahda faysal cirayaanan ku khaldine faysal saas ayuu kaga baxay siyaasadii somalilan ama in uu ahaado guddoomiye xisbi ama uu u tartamo musharax haddii wax kale oo aynaan ogeyn uusan isbedelin marka howluhu halkaasi ayay marhayaan sida laga yaabo warkeennii horeba in aad ku maqlayseen etoobiya waxa ay ka laabatay oo ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka etoobiya maanta in ay heshiiskii ay la gashay madaxweyne biixi 1 Janawari kaasi oo buuq aad u badan ka dhaliyay gobolka iyo weliba ururo iyo hay-ado kala duwan oo Soomaaliya taageera warkii u dambeeyay soo saareen midowga Afrika ayay ku sheegeen waddan aan ixtiraamaynin madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya in aysan ciidamadiisa joogi karin qaybna aysan ka noqon doonin howlgalka cusub shuruudda kaliya ee Ethiopia hortaalay ee ahayd ciidamadeedu in ay baxaan waxa ay tahay in ay ku dhawaaqdo Ethiopia ka laabashada heshiiskii ay la gashay Somaliland 1 Janawari madaxweyne biixi ay la gashay Ethiopia waxaan u malayn sida haddaba la dareemayo ciro in aynan xidhiidh badan lahayn sababtoo ah markii hadda ay aragtay in ciro uu soo baxay ayay heshiiskii ka laabatay marka waxaan miyuusan ahayn wax laba wadan u dhaxeeya ama laba system oo sharci ah mise wax nin ku xidhan ayuu ahaa wax nin ku xidhan inuu ahaa ayaa loo arkayaa mar haddii Ethiopia hadda ay door biday in ay ciidamadeedu Soomaaliya joogaan oo heshiiskii ay ka laabatay dabcan si public mayna u sheegin laakiin waxay sheegtay oo hadda aad ku arki kartaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia in ay Ethiopia door bidayso sidii Soomaaliya ay walaaltinimo iyo deris wanaag ugu sii wada noolaan lahaayeen wax walbana ay ka hormarin hayso wixii hadda ka dambeeya marka digniin bay haysatay Ethiopia in ciidamadeedu ay baxayaan
in ciidamadeedu ay baxaanna ma aysan rabin oo xoolaha iyo lacagta badan ay ku qaadato in ay weydo iyo in dee siyaasadihii soomaaliya ay ka lahayd iyo wixii oo dhanba bannaanka ay noqdaan ma aysan rabin marka mar haddii uu muuse tegey waxay qaadatay uun in ay sii joogaan ciidamadeedu oo ay heshiiskii ay ka laabato taas sidaas ayay iyadana u dhacday inahaas ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal waxay soo kordha hadduu alla idmo wararkeenna dambe ayaad ku maqli doontaan wixii naga halaabay shaydaan ayuu ka ahaaday iyo nafteenna wixii noo hagaagayna karsiinta alle ayay ka ahaatay marka ma jirto cid aan taageerayno oo si gaar ah ama jacayl iyo xiise aan u qabno dadkaasi u sharaxnaa xilalka kala duwan ee somalilan madaxweynuhu ugu sarreeyo waxaan ugu hambaliyaynaynaa cid kasta oo guulaysatay kuwa kalena mar kalead guulaysanaysaan insha allah haddaad khayr dadkaasi u tihiin ayaan leenahay inahaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynhaynaa aad iyo aad ayaan idiin salaamay waa laga yaabaa in ay soo baxaan warar kale oo ama natiijada lagu dhawaaqo laakiin ilaa iyo hadda xaaladdu halkaas ayay maraysaa waa inu ismaqli doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu